waxaa la filayaa in isbedel farxad leh uu dhasho. Waa maalin farxad leh, maalintii SYL 15 May. Labada aqalna waxaa aad looga rajeynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka farxin doonaan. Ammaano Ilaahay ayaa hortaalla, si kasta oo ay ku yimaadeen, si kasta oo lacag loo siiyo, alla keliya ayaa arka. waxaana la filayaa inay isbedel doonka u codeyn doonaan. musharaxiintana waxaa laga filayaa in ay isugu shubaan si ay dhibaatadan 5 sano na taabatay ay meesha uga baxdo. maanta dalku badbaado ayuu u baahan yahay, dalka iyo dadka iyo diinta ayaa u baahan. farmaajo annaga ayaa keensanay, annagoo u malaynayna ballanqaadyadiisii inay run tahay. marra ismanaan lahayn farmaajo ayaa saa noqon doona. wuu nooga duwan yahay dadka kale. wuxuu noo sheegtay ayaa waxay ahayd waxaan la fili karin. wuxuu noqdayna waxaana la fili karin. isagoo ballanqaadyadiisii dhammaan ay beenowday oo Soomaali wada og tahay, oo fiidiyadu meelaha laga daawan karo waqti aan ku lumin karin, ayaa waxa uu ku darsaday labada aqal oo ay maqlayay shacabka Soomaaliyeed ba tacadiye inuu geesto, shirqool inuu geesto, isku dir inuu geesto, dad Soomaaliyeed inuu dhiibo. waxaana la filayaa in shamsi lagu qaadi doono oo ilaahayna dhaafin doono, allahna u dambi dhaafo dambigu geestay. walaalaha musharaxiinta waa in ay qofkii doono ha soo qabto, ha soo baxo Soomaaliyeed qofkii ugu wanaagsan waa inay u dooraan labada aqal u dooraan. cid ku arkaysoon ilaahay ahayn ma jirto. berrina adiga ayaa lagu xisaabinayaa, waqti kastaa dhiman kartaa insha Allah. mucaarad iyo maxaafidna dalkaanu leenahay, qof kastoo yimaadana waanu la shaqeynaynaa. ilaahay waxaanu rajeynayaa Soomaaliya guul. wallaahi dareemkanagu aad buu u fiican yahay in la soo gaaray halkan oo uusan dagaalna gelinin ninkii farmaajo ahaa. shacabka Soomaaliyeed ay ka dhabeeyeen, ra-iisul wasaaruhu ku guuleystay. isbedel doonka dhammaan dadkii diidanaa oo xamar baa dagaal ridaysa ilaa inta ay diidanayeen, farxad bay noo tahay really. madaxweynaha caqabadaha horta yaalla waxa way iska badan tahay, waa la garanayaa. waxa ugu daran dastuurka uu dhammaystiro, maxkamadda dastuuriga uu dedejiyo, shabaab oo lala heshiiyo, laana waxaan laga maarmayn horaa loo yeelaa. taas ayaa ugu muhiimsan, iyo arrinta Somaliland. marka arrimuhu way kala daran yihiin. amniga ayaa aniga ii muhiimsan. wixii lagu dayi karo walaalowna weligaa dee laguma ordo, dagaal laguma ordo. aniga taas ayaan qabaa shakhsi ahaan. waayo waagii Shariif ayaan tusaale ka qaadanayaa lala heshiiyey oo lagu soo daray dowladda. marka taas ayaan mudnaanta aanu siinayaa madaxweynaha imaado inuu geesinimo qaato. waxaan anagu la imaano buu caalamkuna uu nala qaadanayaa. marka geesinimadaas ayaa loo baahan yahay. amniga ayaa number 1. amniga haddii la helo Soomaaliya caalamka oo dhan baa u soo jeeda. insha Allah waxaan rajeynayaa in lagu guuleysan doono, isbedelkaas uu si wanaagsan u dhici doono. anu muwaadin ahaan waxaan u dirayaa fariin madaxweynaha imaanayo isla marka uu saa u guuleysto berri insha Allah inuu amar dul dhigo madaxweynihii hore, ha noqdaan xildhibaano, ha noqdaan taliyaal, in lala xisaabtamo oo aysan dalka ka bixin. tacadiyadii, isku dirkii, shirqooladii wixii la geystay inay isla xisaabtan noo bilowdo oo ay noqoto waddo cusub. 5 sano oo Soomaali ka halawday, muwaadiniintii la dhiibay, waxaanan weligeed la maqal oo la arag nin miskiin inta la keenay madax laga dhigay uu sameeyay saysan dib dambe u dhicin. waxaan qabaa madaxweynaha berri ku guuleysan doona isbedel doonka inuu amar dul dhigo ku doono ha noqdee kooxdan dictatorkan iyo kooxdiisaba oysan ka baxsanin, ha noqdaan jago walboy haystaan, waa inuu sharcigu sareeyaa berri. taas ayaan qabaa. taas ayaana dalka badbaadinaysa. taas ayaana waxay jeexaysaa waddo cusub oo kuwa ka dambeysana ay ku cibro qaataan. Soomaali waxay ku maamaadaa kas iyo kibir meel ma wada galaan. inuu qofku caqli leeyahay iyo kibir inuu la yimaado meel lama wada galaan. waxaba ka daran isagoon tabar heenin buu wuxuu ismooday siyaad barro kale, markaasuu dadkii tacaddi, shirqool, leen iyo wax walba sameyn buu sameeyey. tan haddii looga hadhana weligeed way soconaysaa. marka waxaan qabaa madaxweynaha cusub oo ku guuleysanaya ilaahay ku guuleeye. waxaan ka codsanaynaa inuu isla markaaba amar dul dhigo dhinac walbaba.
وأنا سلامية. bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid